إذا جاء صاحب waxaa ogtahay inaan iskala soo shaqeynay idaacadii Afgooye oo aad adiga ka ahayd madaxda xilligaas oo aan tababarka ka ahaa runtii waxbarashada ilaa waxay gaarsiisay waa hordhaca waraysi aan la yeelanay agaasimaha Durdur Media Xasan Mustafa Isxaaq oo magaciisa lagu soo koobo Xasan Toob oo kamid ah YouTuberadii ugu horeeyay ee sida awood leh uga soo muuqda magaalada Muqdisho kaasoo muuqiisa iyo maqalkiisa si fudud ku gaaray meel kasta oo ay Soomaali joogto waana shakhsi caan dhalay ka ah social media ee ay bulshada aad ka u isticmaasho Xasan Toob wuxuu kaalin muuqata ka qaataa in bulshadu uu soo bandhigo shakhsiyaadka hibada gaarka ah leh ee kari waayay inay helaan wado ay hibadooda gaarka ah bulshada ugu soo bandhigaan waxaan goobjoog u soo ahayn oo aan qiraal ka nahay in Xasan uu sabab u ahaa inay si fudud ku soo caanbaxaan YouTubers badan oo hadda magac weyn ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed mase ogtahay daawade in Xasan YouTuberadii uu gacantiisii ku keenay social media uu mid kasta u sameeyay qiso u gaara iyo sheekooyin maad u badnaa taasoo sabab u noqotay in bulshada dhexdeeda ay saameyn weyn ku yeeshaan sidoo kale Xasan waa samafale si hoosaha ula socda shacabka danyarta ee ku nool magaalada Muqdisho iyo deegaanada hoos yimaada waraysigan oo aad goordhow ka daawan doontaan Idaaja Media waxaan Xasan ku weydiin doonaa su'aalo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sirta ka dambaysa inuu yahay shakhsiga maanta caanka ka ah social media iyo Soomaalida dhexdeeda arrinkaas waxa ii fududeeyay inaan sameeyay jadaal badan juhdi badan aan ku bixiyay in ku dhigaagii ahaa hebelka ugu shidan magaalada sida dhakhtarka ugu shidan magaalada darbi jiifka ugu shidan magaalada iyo wax la mid ah soo hal ku dhigaasi macna intee la eg buu kugu fadhiyaa muxuu siyaa ujeedada ka dambaysa waraysigan oo dhameystiran waxaad goordhow kala socon doontaa Idaaja Media si aanu ku dhaafin waraysigan xiisaha leh fadlan soo booqo Idaaja Media oo subscribe